dhakhtarad ka soo jeeda dalka Sacuudiga ayaa waxay tiri waxaa imaaday isbitaalka wiil lagu magacaabo Maxamed oo ku jira da'da 30aad. hooyadii oo xanuunsan ayuu waday waa uu celcelinayaa oo waxa ay doonaysaa inay ka baxsato. wasaq ayay dharkiisa ku haleynaysaa iyada oo dharbaaxsheynaysa. kadib wuu u dhoola cadeynayaa waxyaabihii ay ku haleysay ayuu iska nadiifinayaa. markii la soo gaaray waqtigii la kulmi lahaa dhakhtarka si naxariis leh ayuu u soo waday hooyadii iyada oo u khoslaysa sidii dadka waalan oo kale. dhakhtaradii waxa ay weydiisay yaa waayo qoftan, wuxuu ku yiri waa hooyaday. maxaa ku dhacay marka? waxa uu ku yiri waxa ay dhalatay iyadoo aan caqli lahayn. sidee kugu dhashay adiga marka? awowgay ayaa u guuriyay aabahay si ay carruur u dhasho. aabahay wuu guursaday sanadkii ugu horreeyay ayuuna furay. uur ayay qaatay aniga ayaanay dhashay. laga soo bilaabo waqtigii aan jiray 10 sano ilaa hadda aniga ayaa xanaaneeya oo cuntada u kariya. haddii aan doono inaan jiiftane xarig ayaa lugteeda ku xiraa si aysan iga baxsan oo aan u waayin hadhow. waxa ay tiri maxaa u keentay halkan? wuxuu ku yiri way xanuunsan tahay. hooyadii waa ay qoslaysaa dharkiisa ayayna haleynaysaa. isagoo u dhoola cadeynaya ayuu gacmaha ka qabanayaa. waxay ku tiri ma ku garanaysaa inaad wiilkeeda tahay? maya wallaahi ima garanaysa inaan ahay wiilkeeda, laakiin Allah ayaa garanaya inay tahay hooyaday. hooyadii ayaa hadalka ka soo dhex gashay waxayna ku tiri binlow ayaa tahay, maxaad ii wadi weysay si aan u soo cumraysto? wuxuu ku yiri hooyso kuma dhihin waa ku wadayaa. dhakhtaradii ayaa weydiisay oo hadda cumro miyaad u wadaysaa? wuxuu ku yiri mar walba oo ay weydiiso waan u wadaa, ma doonayo. waxa ay ku hamisay aniga oo awooday inaan ka hor istaago. iridda ayayna ka baxeen isaga iyo hooyadiis marka ay howshoodii dhammaysteen. albaabka ayay xiratay dhakhtaradii, ilin ayayna isku celin weysay. waxay tiri waan maqlay baarinimo, laakiin wiil dhalinyaro ah oo hooyadiis aysan garanayn una adeegaya oo waxa ay doonayso u sameynayo waa wiil baariya oo awooday inuu geeyo goobaha lagu xanaaneeyo dadka xanuunsanaya, laakiin aan sameyn oo isaga gacantiisa ku xanaaneynayo si albaabada jannada mar walba ugu furnaato. waxaan idinka rajeynayaa inaad muuqaalkan la wadaagi doontaan asxaabtiina. haddii aad ku cusub tahay janaalka Maahid HD, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. mahadsanidin.